carruurtii 500 sano ka hor waalidiintoodu ay dileen iyaga oo nool ayaa waxaa laga helay qaybo ka mid ah waddanka Peru. Khubaro ku xeel dheer culimada dhulka ee waddankaasi Peru ayaa soo saaray waxyaabo la aaminsan yahay in ay tahay tiradii ugu badnayd ee carruur naftooda la quuro oo hal mar ay waalidkoodu ay dilaan. taariikhdani ayaa waxa ay tahay mid aad xusid u mudan, iyadoona taariikhda caalamka lagu xasuusto in carruur intaasi gaaraysa aysan hal mar wada geeriyoon. meydad gaaraya 227 carruura oo da'doodu ay u dhaxayso 5 ilaa 14 sano ayaa laga soo saaray meel u dhow magaalo xeebeedka lagu magacaabo Huanchao oo u dhow caasimadda dalka Peru ee Lima. carruurtani ayaa la aaminsan yahay in naftooda ay waalidiintoodu quureen oo muddo 500 sano ka hor ay geeriyoodeen. arrintani ayaa timid ku dhowaad hal sano kadib markii meydad gaaraya 200 oo carruur ah oo kale laga soo saaray goob ka mid ah waddankaasi Peru. khubarada ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in qaar ka mid ah meydadka la arkay ay weli ku yaalaan timo iyo sidoo kale maqaarkooda. carruurtani ayaa waxaa ka muuqata astaamo caddaynaya in la dilay xilli cimiladu ay aad u qaboobanayd kadib markii la aasay iyagoona wejigooda loo jeediyay dhinaca badda. arrintani ayaa sababteeda la sheegay in ay ahayd maadaama waalidiintoodu ay naftooda u quureen carruurtani, sidoo kalena ay ugu dhowaanayeen ilaahyada xilligaasi ay aamisnaayeen. hase ahaatee si rasmi ah looma caddeynin sanadka carruurtani ay geeriyoodeen ama dhacdadaasi ay dhacday, balse waalidkoodu ayaa waxaa lagu qiyaasay in ay sanabyada been abuurka ay caabudayeen daraaddood ay carruurtooda ay u dileen. falkaasi carruurta lagu laayay waxaa sameeyey qoomiyadda lagu magacaabo Chimo ee dalkaasi Peru, kuwaas oo xilligaasi bulshada ugu awoodda badan ee gobolka ku dhow xeebta ahaa. waxaana qoomiyaddaasi ay aad u soo caanbaxeen intii u dhaxaysay sannadihii 1200 ilaa 1400. kadibna waxaa awoodda biday oo qoomiyadda kale oo lagu magacaabi jiray Inkaas, kuwaas oo ka adkaaday qoomiyaddaasi kale. Inkaas qudhooda waxaa waagii dambe ka awood badiyey dalka Spain dad ka socday oo muhaajirnimo ku tagay dalkaasi Peru. waxaa hadda socota howlgallo kale oo agagaarka halkaasi lagu baarigoobayo, iyadoona khubarada waxa ay filayaan in ay heli doonaan meydad kale oo dheeraad ah maadaama xilliyadaasi waddankaasi carruur fara badan lagu laayay. waxaa tiri xad dhaaf ahaa meel kasta oo aad qaaddo waxaad ugu tegaysaa meydad kale ee carruurta ah, sidaa waxaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay madaxa khubarada ee lagu magacaabo Fren Castillo.